kan oo ahaa kulan ay soo qabanqaabiyeen waxgaradka odayaasha beelweynta wacbuuna nabgaal loogana hadlayay sidii loo dhammayn lahaa dagaal in muddahaba ka socday qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxaana odayaashii waxgaradka ahaa ay isugu keeneen labadii beelood ee daruurta halka ku dhex maraysay iyagoona ka dalbaday in la qaato xabad joojin ay labada beelood ay wada gaaraan qaar ka mid a odayaashii waxgaradka ah beelweynta wacbuuna nabgal ayaa soo bandhigay hindisayaal ku aadan in la qaato go-aankana maanta bisha ramadaan lagu jiro sidii loo joojin lahaa dhiigga walaalaha ee daadanaya nabadoon maxamuud axmed xuseen marshaale oo ka mid ah odayaashii waxgaradka labada beelood ee ku dagaalamayay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe isagu waxa uu sheegay inay qaateen heshiiskan xabad joojinta ay soo jeediyeen beelweynta wacbuuna nabgal anigoo ku hadlayo codka labada beelood oo halkan maanta arrinta heshiisiintooda ka bilaabanayso beel ka mida codkeeda ku hadlaayo waxaan qaadanay oon aqbalnay oo aan si buuxda u taageeraynaa dib u heshiisiinta wacbuunan abgaal wado waxaana ka digaynaa dadka dhinacyada inay ka soo galaan rabaan ayaan ka digaynaa inay arrintaa ka joogaanna waa rabnaa inay ka joogaan ay dhinaca ka soo gelin waa u baaqaynaa wacbuunan abgaal arrintaa u fadhiyo waana taageersannahay waana aqbalaynaa wax xumaanahoo maaragta sii socon doonana ma laha sidoo kale nuur cali maxamed oo ka tirsan isaguna waxgaradkii odayaasha beel ka mid a beelihii ku dagaalamayay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay isaguna inay qaateen beeshiisa heshiiskan xabad joojinta ay soo qabanqaabiyeen odayaashii waxgaradkee nabadoonnada siyaasiyiinta beelweynta wacbuuna nabgal islamarkaana lagu doonayay in lagu soo gabagabay khilaafka in muddadaba taagnaa ilaahay awal wada dhalshay oo dhibkayna isku keenay ee soonkaa noo dhibtoo hayso horta mahad xidin gaartaan leenahay intaas kadib anigoo ku hadlaaya afka duuliya mataan waxaan leeyahay walaalkayga iga weynaaya xasan gaab anuuka colna uma ihin colna lama qabno umana colaatin balse waxaa iska dhacaan waxaa iska dhacaan wax lama filaana waxaa iska dhacaan wax lama filaana wixii oo lama filaanana haddii uu rag ka tashado waa laga hortegi karaa inkastoo waxay aynaga soo jiitantay ee anugu aan isxalli weynay maanta waxaanugu soo baxay dadkii nala dhashay dhaxalka nala wadaagayey dhalashada nagala dhexaysay ayaan xilka u dhiibnay inay wixii dhiman noo dhammaystiraan gabagabadii kulankaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ex banaadir horeyna xildhibaan u soo noqday maxuudiin xasan afrax ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in labada beelood heshiiskana maanta ay ka dhaba islamarkaana ay soo gabagabeeyaan dagaalada in muddaha ka soconaya qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxgaradka iyo nimanka la yidhaahdo dhaqanka ee wacbuuna abgaal aa isugu yimid ayagoo dhexdhexaadinaya amba ku soo baxay isku dhac laba beeloodoo walaalo ah oo isla dhalatay xasan gaab celi iyo duuliye mantaan nimankaasoo wax iska dilay waxna iska dhaawacay waxyaaba laasku haystaana waa jiraan maanta ilaahay mahaddiis waxay ku guulaysteen beelweynta wacbuunan abgaaloo ku soo baxday dhibka inay joojiyaan xabadda walaalo horna waa ka aqbaleen waxay sheegeen inaan xabadda ma dhacayn wixii kaloo laasku haysto waa laga warrami karaa laakiin waxay naga aqbaleen aan uga mahad celinaynaa walaalahayna inaan xabadda ma dhacayn waxaa yidhaha dagaal wiilkuma dhashee waa ku dhimaya halidhaah inaan wiilkaynahoo dambe la dilo uma baahnin in wiilkaynahoo dambe ay ciddaynahoo meel ku qaxdo uma baahnin wax allaalay wix inugu kala dhex jira waxaan ku samaysan karnaa iyadoon la isxabadayihiin xisaab aa lagu maanay karaa xabad wax laguma maaneeyo xisaaba wax lagu maanayn karaa iyadana maanta waxaan isku raacnay ilaaha mahadda leh inay istaagtay oo aan jirin xasan gaab dhexdiisa iyo nimanka la yidhahdo duuliye mantaan xurguftii ka dhaxaysay oo keentay in la dhinto maanta waxaan meeshaan faataxda u akhrisanay inay dib u dhacayn waxaana odayaashii waxgaradkii ka qayb galay kulankaasi ay bogaadiyeen labada odayaashii waxgaradka labada dhinac ka kala socday waxaana sheegeen inay u baahan yihiin in la joojiyo dhiigga sida macnadarrada ugu daadanaya qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe